exactly ما شاء الله ما شاء الله حلياس انت شقيس هذا ما شاء الله ما شاء الله يا وين كان أباه أوكي أني كان يا وين أن isbitaalka ka jiifay meeshan waa meesha aan joog jiray ama aan jiif jiray weedka macna sariirta taali jirtay goobtan xasuus goonay u leedahay farxada ay tahay inaan anigoo nabad qabo caafimaad qabo inaan imaan alxamdulillah ma santiinay walaalku waxaan joogaa geed aan ku nasan jiray goobtan hadda u jeedo waa geedkan hadda islaad meeshan aan joogo oo ku nasan jiray joogo waxay kamid ah goobaha aan ku nasan jiray laba bir oo kale isbitaalka markaa ku jiray halkaan la isoo wareejiyay oo meel goon ay ahayd ma aqaan markaas boorkaas ku dhiganaa jiray hadda waa laga fujiyay I think hay'adaha in isbedelay ma wara uma hayo laakiin ma sha Allah اللي jiray aan tagno wuxuu kamid ahaa dadka si khaas ah ay markaas ii dhey jiray oo nabriya xabada ii dhey jiray sawirkiisan waa kan waa qofkaan hadda ma sha Allah oo aan isbedelin sidiisa way ya maxaa dadalay sawir aad u xasuusta ayaa halkaan ku galay sawirkaas yani turaaja igu surneed waxaan joogaa sawirka goobta hadda ku galay muuqaal ahaan iyo markaas madluun ayaa ahaa dhaawaca iyo waxyaabahan ka fikir jiray oo murug ay ahayn jirtay haddana waa kana waxaan imaaday isla goobtii aan wax badan ka bedelneen kaliya yani la ii sheegay shaqaalaha isbitaalka sheegan halkaan in dayactir laga sameeyo iyo dhan la bedel rabo oo qaab VIP waxyaabaas laga dhis doon oo wuxuu kamid yahay dhismaha uu ka socdo yani isbitaalka ala kulli xaal 12 sano ka hor ayaa sawirkan u ahaa haddana waa kan ma sha Allah oo ku raaxaysanaya muqbilana du'ana muqdisho wa murayadni muqbilana du'ana muqdisho wa murayadni muqbilana du'ana muqdisho wa murayadni muqbilana ندوعنا مقدشة ومرايتني أبتي سيتاي في عنتاي خير الله حالدين ما شاء الله thank you so much تيتون سون واي يريس حيتايا okay oh my god yeah على سقف haddana waxa rabaa bilicda kale ee dhismaha cusub ee isbitaalka uu ka kooban yahay in arko hadii aad fiiriso wili goob kasta waxa arkay dhismooyin oo isbitaalku lagu soo kordhinayo soo hadda waxa hadda la ii sheegay in mar dhow xarig la jari doono emergency gan oo malajar already okay ma sha Allah muqbilana du'ana muqdisho wa murayadni yani goobtan waa emergency ga cusub ama dhismaha cusub ee isbitaalka lagu soo kordhiyay ma sha Allah waxa dhayax dhigay ra'iisul wasaaraha dalka mudane Xamse sidoo kale isla asiga la xarag jiray ma sha Allah horumarka iyo bilicda oo wadanka ayuu kamid yahay almuhim maalmaheegi waxa ku jira oo booqashada isbitaal Madiina ya maalin wacna dhig karaabo ya hada oo faraxsan ma sha Allah professor ma sha Allah sidaan isma how you you want to know me I'm the number 1 Somali YouTuber Really? Yes. يا الحمد لله وانا ود ما وحشوسا اوكي ما شاء الله في عندك غير ما شاء الله thank you so much ما شاء الله مقعه اسمعك براد واو اذا دلسيسه ما شاء الله waxaa ila joogto gabar isbitaalka ku dhalatay ma sha Allah oo halkan kulanay oo giftigaas ugu talgashay waa ma santahay dhakhtartii dhalisa joogto Dr. Naima so ma sha Allah farxad waa iyada Naima Allah saas lagu baahay ya heli karba ma sha Allah sabar bar waxa soo gaarnay qaybta bukaan socodka OPD waa adeeg ku cusub isbitaal Madiina
waxaa imaaday qaybta ugu dambaysa ee isbitaalka qaybtan waa qayb hadda la dhisaayo waa qaybta hooyadii dhalaanka oo dhismiis hadda socdo agaasimo Portugal oo si wanaagsan qurux badan ii soo dhaweeyay sidoo kalena la ii sheegay in yani dhismahan iyo horumarkan isbitaalkii adeegyadan cusub dhan uu asiga ku dambeeyo hooshiisa soo waxa leeyahay agaasimo hor u sii socdo insha Allah bulshada si caawi sidoo kale waxa halkan ugu mahad celinaa eedane agaasimo Fortune oo ah agaasimaha isbitaalka Banaadir oo ku faraxsanahay horumarkaaga iyo dadaalkaaga hor u sii wad insha Allah sanadka dambe insha Allah darajadaas mid ka sii sareysa iyo wax qabadkaaga si batood waalidmo dhamaantiin aad iyo aad u mahadsantihiin muuqaalkii halkaas ku soo koob doona aan maanta aan soo booqday isbitaal Madiina oo ah goob aan iloow karin oo ah goob taariikhi ah oo ah wilibna goob kamid ah taariikhaha 27 Agoosto waa maalinteeda u horeysay ee Muqdisho iyo booqashadii isbitaal Madiina waxaan ma sidii daawasho muuqaalka daawateen waxayna balana muuqaalkan muuqaalada xigay sidaas iyo nabadgelyo bye bye xariisto waa dhalad rabbiku dhaxaatay qofka aad mar dhugata soo nasiibku